tiirka ugu horeeya waa xasilinta dalka, sarraysiinta sharciga iyo dawlad wanaagga. xasilintaas oo ku dhisan ama ku salaysan sarraysiinta sharciga iyo dawlad wanaagga. xasilinta dalka waa tiir ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee ay ku taagnaan karto dawladnimo waarta oo hana qaada. waxaana ugu horeeya xasilinta dalka amniga, garsoorka, dawlad dhisidda iyo dawlad wanaagga. sanadkii 2012 dalka intiisa badan waxaa gacanta ku hayay kooxda shabaab, waxaana laga maarmaan ahayd inay dawladdu la timaado qorshe lagu xasiliyo dalka loogana saarayo gacanta kooxdaasi. sidoo kale dalku waxa uu la daalaadhacayay kooxa burcada, waxaana laga maarmaan ahayd in sharciga iyo kala dambeynta la soo celiyo. si dhibka looga dulqaado bulshada durbadiiba waxaa la bilaabay qaadista 32 isbaar oo yaalay gudaha magaalada Muqdisho, waxaana isla markiiba loo gudbay oo ku xigay wadooyinka Jowhar iyo Afgooye oo laga sifeeyay jidgooyooyin kale. howlgalo ciidan oo xoog badan ayaa la bilaabay oo loogu magac daray Gorgor iyo Badweynta Hindiya oo ay ciidamada xoogga dalku sameeyeen, waxayna ku guuleysteen inay al-shabaab uga xoreeyaan magaalooyin iyo deegaano fara badan. dawladdu waxay xil weyn iska saartay xoojinta ciidamada qalabka sida xagta iyo intaba. tirada ciidamada bileyska, asluubta iyo nabad sugiddo 4 sano ka hor waxay ahaayeen 5,000 oo askari, maantana waxay marayaan 33,000 oo askari oo mushahar qaata. si haddaba loo dardargeliyo awoodda ciidamada qaranka, waxaa dib loo furay talisyadii qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, sida qaybtii 6aad, 22aad, 26aad, iyadoo lagu howlan yahay diyaarinta xarunta tababar oo aad u baaxad weyn. waxa ayna la dhisay guddiga isku dhafka ciidanka si loo dedejiyo isku dhafka maleeshiyaadka dalka ka jira si looga wada dhigo ciidan qaran, waxaana la gaaray horumar aad u weyn. dawladdu waxay awoodda iskugu geysay in kor loo qaado aragtida dadka ee cadaaladda ku aadan, iyadoo dib u habeyn dhab ah lagu sameeyay hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka, iyadoo lala kaashanayo golayaasha dawladda, hogaamiyayaasha bulshada iyo ururada bulshada. waxaa si wanaagsan loo horumariyay amniga dalka, waxaana aas-aaska loo dhigay hay'adaha amniga iyadoo laga duulayo tiirka xasilinta dalka ee ka midka ahaa qorshaha 6 tiir ee madaxweynaha uu dalku ku hogaaminayay. tiirka labaad waa soo noolaynta dhaqaalaha dalka. mudane gudoomiye mudanayaal marweyn kaabayaasha nolosha, waxaan ka shaqaynaynaa sidii kor loogu qaadi lahaa nolosha muwaadinka iyo midda qoyska Soomaaliyeed. ka hor 2012 dalka intiisa badan gacanta waxa ugu jiray shabaab, sidaa darteed waxa laga maarmaan ahayd in dawladda cusub la timaado istiraatiijiyad dhaqaale oo lagu nooleynayo dhaqaalaha dalka, laguna abuuro jawi ay bulshadu ku shaqaysan karaan, iyadoo xoogga la saarayo in la helo dhaqaale ay dawladda ku maareyso howlaha baaxadda weyn ee horyaalay. waxaa isla markii ay dawladdu dadaal ku bixisay dejinta miisaaniyadda dawladda, waxaana laga bilaabay in la dejiyo miisaaniyaddii lagu dhaqaaqi lahaa inta bil ee sanadkaas ka dhinnayd, waxayna noqotay miisaaniyaddii ugu horeysay ee sida ay tahay loogu shaqeeyo burburkii dawladdii dhexe ee dalka kadib.
waxa iyana dib loo howlgeliyay hagaajinta nidaamka maaliyadeed waxaana la soo celiyay awoodii haybadii bangiga dhexe ee dalka iyadoo sidoo kale la hormariyay nidaamka isla xisaabtanka iyo mushahar bixinta waxa bangiga dib loo furay 2007 intii ka dambeysay marba heer buu soo marayay wuxuu ku bilaabay markii hore to bangi aan lacag lahayn oo xafiis lahayn oo nidaam lahayn oo shaqaale lahayn intii ka dambeysay waxa weeye waliba siiba sanooyinkan ugu dambeeyay oo markii ay wadanka ka dhalatay dawlad la ictiraafsan yahay oo rasmi ahaan adduunka looga aqoonsan yahay oo hay'adaha dawladdu ay la shaqeynayaan bangigu tallaabooyin waaweyn buu qaaday waxa ugu weynayd moogta inuu shaqaalihiisa dib u habeeyo shaqaale fiican oo aqoon leh inuu qortay xaruntan aad u jeedaan oo moogta oo burbursan markaas in dib loo dhisay inuu sameeyay xiriir fara badan oo xiriirka dibadda inuu dib u soo nooleeyay bangiyadii dibadda oo macaamilka ula lahaa in dib loo soo moogta furay xisaabahoodii iyo nidaamkoodii iyo xiriirkoodii taas waxay qayb weyn ka qaadanaysaa adduun weynaha wixii lacag dawladda loo soo dirayo ama bangiga loo soo dirayo inay fududaato ama loo diro ama loo soo diro arrintaas waxay ahayd talaabo weyn oo moogtay oo bangigu moogtay uu qaatay u suuragelisay xiriirkii dibadda inuu fududaado hay'ado badan oo adduunka buu la shaqeeyaa bangigu sida bangiga adduunka hay'adda lacagta adduunka bangiga horumarinta islaamka bangiyadaas oo dhan dekada iyo garoonka muqdisho ayaa lagu sameeyay dib u dhis weyn waxaana lagu wareejiyay shirkado caalami ah oo dhisay sida garoomada iyo dekadaha caalamiga ah ay u dhisan yihiin waxayna talaabadaas horseeday inuu si weyn u kordho dakhligii ka soo xaroon jiray sidoo kale si uu u ballaarto dib u dhiska iyo ganacsiga waxay wasaaradda ganacsigu sameysay qiimo dhimis 50% ah shatiyada kala duwan ee ganacsiga taasoo dejisay isla markaana dhiirigelisay kobaca iyo kororka ganacsi dalka waxaa laga furay bangiyo casri ah oo ku shaqeynaya nidaamka bangiyada caalamka markii ugu horeysay ayaa dadka Soomaaliyeed kaararkooda wax uga iibsan karaan dunida meesha ay doonaan isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dalka ayaa tallaabo hor la qaaday kadib markii la keenay dalka adeega internetka ee loo yaqaan fiber optic oo ah midka ugu xawaaraha badan uguna casrisan dunida kaasoo dalka la keenay muddadii ay dawladani jirtay waxaa horumar laga gaaray dhanka dhismaha iyadoo Muqdisho ay aad u balaaratay wuxuuna ahaa balaca magaalada Muqdisho 5 kiiloomitir iyadoo dhererka uu ahaa labalaab intaas 10 kiiloomitir maanta balaca caasimada waa 15 kiiloomitir halka dhererkuna uu yahay 25 kiiloomitir waxay sidaas Muqdisho ku noqotay magaalada labaad ee ugu kobaca badan dunida dawladdu waxay dhiirigelisay inay dhismaan beero dalxiis iyo darjiinooyin casri ah oo loo nasiino tago taasoo muujinaysa nabadgelyada iyo horumarka dalku ku tilaabsaday dhinaca xasiloonida iyo dib u dhiska 4 sano ka hor shidaalka waxa uu ku soo degi jiray fuustooyin waxaana suuqyada looga iibsan jiray fuustooyin iyo jirgaano taasoo sabab jirtay in suuqyadu ay gubtaan maanta waxa magaalada laga hirgeliyay 42 kaalin shidaal oo casri ah waxa dib loo dhisay loona howlgeliyay kaydkii shidaalka dalka kaasoo awood u leh in uu kaydiyo 40 milyan oo litir oo shidaalka noocyadiisa kala duwan ah tiirka kobcinta dhaqaalaha dalka ayaa si hufan loo dhisay waxaana taa ka marakacay hay'adaha qiimeeya koriimada ganacsi ee dalalka dunida sida IMF oo ku sheegtay in dhaqaalaha Soomaaliya uu kordhay sanadkii tagay ee 2015 boqolkiiba 3
tiirka saddexaad nabadaynta iyo dib u heshiisiinta waxaan door muhiim ah siin doonnaa hogaamiyaasha bulshada sida duubabka dhaqanka culamaa udiinka haweenka dhallinyarada waxaana la abuuri doonaa golayaal gaar u ah wada tashiga bulshada dalku wuxuu soo maray in ka badan 20 sano oo dawlad iyo nidaam la'aan ah waxayna midaasi keentay inay meesha ka baxdo nabadii iyo xasiloonidii iyadoo ay dagaalada iyo colaaduhu ahaayeen kuwa soo noqnoqda sidaas darteed waxaa laga maarmaan ahaa in dawladdu ay dadaal ku bixiso nabadaynta dib u heshiisiinta iyo xasilinta dadka iyo dalka Soomaaliyeed durbadiiba waxaa la sameeyay lana ansixiyay sharciyadii lagu howlgali lahaa sida sharciga lagu dhisay guddiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka sharciga lagu dhisay guddiga federaalka iyo xuduudaha sharciga asxaabta siyaasadeed waxa sidoo kale loo howlgalay dhismaha maamul goboleedyada Jubbaland Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle xaqiiqdii wali buu ahaa federaal oo dhanka ka jara federaalkii wali aan hana qaaday in meel la raayis ismaamul goboleedyada oo meel la raayis ummadda Soomaalida ka wada qanacsanta deegaanada ku hana qaadan walow hata meel la raayis shabeellada hoose ee hiiraan dardargelintii meel fayl marahayta madilla ku reeba anta kale ismaamul goboleedyada ummatiyo ka qanacsan sidii lan ka tala galan in shaqeeyahayaan hadii abnihaada fadhi hadii qiimo bulshada hada fadhi hadii ganacsiga hada fadhi hadii hada fadhi kaabiyaasha meel la raayis dawladda waxay madaxda dalku gaareen shacab ay adkeed in la hadlo lagana warqabo iyadoo ay u ahayd farxad shacabkaasi oo halkooda lagu geeyay dawladnimada waxa la qabtay shirar badan oo dib u heshiisiineed kuwa oo la isku keenay beelaha Soomaaliyeed guud ahaan ee degan dawlad goboleedyada la dhameystiray si ay uga arinsadaan aayahooda iyo sidii ay maamul ay wada leeyihiin u dhisan lahaayeen madaxda dawladdu waxay shirarkaasi dib u heshiisiineed galiyeen juhdi aad u xoog badan waxayna dadaaladaasi noqdeen kuwo miro dhal ah oo guul ku dhamaaday shirarkaas waxaa lagu qabtay magaalooyinka kala ah Dhuusamareeb Garowe Baydhabo Beledweyne Kismaayo Jowhar Marka Gaalkacyo iyo Muqdisho oo lagu qabtay madalo kala duwan oo heer qaran ah kuwa oo dhamaantood la xiriiray dib u heshiisiinta iyo sidii Soomaalidu wax isku darsan lahaayeen iyagoo isku caloolfayo nabadaynta iyo dib u heshiisiinta dalka wax badan ayaa laga qabtay waxaana bedelay adeegsiga qoriga iyo awoodda imaanshaha miiska wada hadalka iyo ku tartamid siyaasad waxaana isbedelay aragtida dadka ee ku aadan colaadaha mudane gudoomiye mudanayaal tiirka afraad waa soo noolaynta adeegyada bulshada dhinaca tacliinta khaasatan dhinaca caafimaadka tacliinta iyo ilaalinta deegaanka iyo fariidhowrka guud ee bulshada tobankii September sanadkii 2012 markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh adeegyada bulshada dalka waxay ahaayeen kuwo aan wali ka soo kaban burburkii dalka durbadii waxay dawladdu bilowday kaabida adeega bulshada waxaana la dhisay xarumo caafimaad oo lagu daryeelo bulshada
maadaama aqoontu ay furo tahay horumarka dalalka iyo ummadaha ayaa hogaanka dalka mudnaan gaara siiyay waxbarashada waxaana la geliyay xoog badan sidii loo horumarin lahaa heerarka kala duwan ee waxbarasho ha ahaato waxbarashada hoose tan dhexe tan dugsiyada sare iyo waliba heer jaamacadeed sidoo kale dawladdu waxay ku guuleysatay dhisidda ama dib u dayactirka 18 dugsi oo ku kala yaala qaybaha dalka waxa kaloo la hirgeliyay ololaha aada dugsiyada kaasoo ujeedkiisu ahaa in ugu yaraan 1 milyan oo caruur Soomaaliyeed ah ay helaan waxbarasho lacag la'aan ah 5 sano ee soo socota markii ugu horeysay muddo 25 sano ah dawladdu waxay ku guuleysatay inay imtixaan mideysan ka qaado dugsiyada sare ee dalka ka oo ay soo jeedisay wasaaradda waxbarashada sidoo kale waxay arday boqolaal gaaraya dawladda waxbarasho dibadeed ugu dirtay dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin Suudaan, Masar, Turki, China, Hindiya, Ruushka iyo kuwa kale oo badan waxaa iyana dib loo howlgeliyay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo ahayd halbowlaha dalka ee aqoon-yahanada maanta dalku ku faano ay ka soo baxeen jaamacadda ummaddu soo nooleynteedu waxay ahayday tiirarkii qarannimada astaanta qarannimada tiirarkii ku taagneed mid kamida haduu midkii ugu muhiimsanay kuwa ugu muhiimsan midkii ugu muhiimsanaa mid kamida in la soo celiyay ayaa ahayday taas ayaana dadkii markaa ay u muuqatay in la soo cabshana jaamacadda ummadda dib loo howlgeliyay dadka u muuqatay waxay ahayday dad ka fikirayay ummadda Soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee intooda badan aysan awood lahayn dhaqaale waxaa lagu guuleystay in la dhiso qaar kamid ah wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Muqdisho kuwa oo markii hore burbursanaa si loo dooro loona horumariyo afkeena hooyo madaxweynaha waxa uu dib u furay akadeemiyada fanka dhaqanka iyo suugaanta waxa awood badan la geliyay dib u dhiska xarumihii dawladda waxaana kamid ahaa kuwa dib loo dhisay aqalka dawladda hoose taliska biliiska Soomaaliyeed xabsiga dhexe 10 wasaaradood iyo 4 wakaaladood waxa si wanaagsan loo hirgeliyay adeegyo badan oo loo baahnaa waxaana aasaaska loo dhigay adeegyada bulshada iyadoo laga duulayo tiirka adeega bulshada ee ka midka ahaa qorshaha 6 tiir ee madaxweynuhu uu dalku ku hogaaminayay tiirka shanaad waa midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed waxaan geed dheer iyo geed gaaban u fuuli doonaa haddii la yiraahdo in la helo Soomaaliya mid ah oo dadkeeda iyo dalkuba ay midaysan yihiin midnimada iyo isku xirnaanta dalka ayaa ahayd mid aan caga badan ku taagnayn sidaas darteed la dashiye kadib madaxweynuhu waxa uu asteeyay 3 qodob si loo gaaro aragti midaysan koo dib u eegista dastuurka iyo dhaqangelintiisa labo dhameystirka hanaanka federaalka 3 dimuqraadiyeynta iyo doorashooyinka qaran dawladdu waxay go'aansatay inay muhiim tahay masiirka dalka si loo helo injawi saamix kara wadajir midnimo iyo in si wadar ogol ah ay shacabka Soomaaliyeed madaxda qaranka iyo kuwa dawlad goboleedyadaba u wada ogolaadaan sidii loo heli lahaa dastuur ka turjumaya rabitaanka shacabka dhameystirka hanaanka federaalka ayaa lagu guuleystay 100% oo maanta Soomaaliya waxaa dhidibada loo aasaasay dawlad goboleedyo ayahooda ka tashada sida Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle
dowladda madaxweyne xasan waxay si wadar ogola u dejisay barnaamijka doorashooyinka dadban ee 2016 iyo habraaca nidaamkaas taasoo ah in la helo doorashooyin ka sharciyad xoogan kana matalaad badan doorashooyinkii 2012 sanadkan waxa la wadaa in xildhibaanka ay soo doortaan 51 beeshiisa ka tirsan halkii 2012 uu waday dhaqameedka soo xuli jiray waxaa shirar kala duwan oo lagu xaqiijinayo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliya lagu qabtay dalka Turkiga taasoo lagu gol lahaa xaqiijinta hadafkii 6 tiir ee midnimada dadka iyo dalka waxaana la isku soo horfariisiyay maamulka Soomaaliland iyo dowladda federaalka si loo difaaco dhulka hawada iyo badda Soomaaliya waxaa dadaal xoog leh lagu bixiyay muran xuduud badeed soo kala dhaxgalay dawladaha Soomaaliya iyo Kenya taasoo la isku fahmi waayay wada hadal dheer kadib ugu dambeynna dawladda Soomaaliya ay dacwo heer caalami ah u gudbisay maxkamadda adduunka una qabatay dacwadaasi qareen heer caalami ah sidoo kale waxaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay loo gudbiyay dacwad ka dhan ah maraakiibta shisheeye ee sida sharci darrada ah uga kulumeysan jiray 25 sano badda Soomaaliya guuna laga gaaray dhinaca kale kooxda la socodka ee monitoring group oo caadeysatay aflagaadada iyo wasaqeynta sumcadda iyo sharafta dadka iyo dalka Soomaaliyeed ayaa dacwad laga gudbiyay loogu jawaabay falal gurcan oo ay ku kacday kadib iyadoon wax xubsan waxaana laga soo saaray qaraaro hogaamiyayaasha Soomaalida oo dhan ay ku mideysan yihiin si talada dalka loo baahiyo wada tashiga wax wada lahaanshaha go'aanada lagu hogaaminayo dalka madaxweynuhu wuxuu abuuray madasha wada tashiga si talada dalka looga qayb galiyo hogaamiyayaasha siyaasadda ee gobolada dalka taasi waxay abuurtay jawi wada hadal oo joogto ah oo u dhaxeeyay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dhisan tiirka midnimada dalka ayaa loo dhisay si heer sare ah iyadoo imika ay dadka Soomaaliyeed oo idil heleen maamulo matalo oo gobol walba ku sugan lixaad ee ugu dambeeya tiirarka dib u dhiska dalka waa abuuridda ilaalinta iyo abuuridda xiriirka caalamiga ah ee ku salaysan iskaashi iyo wadajir waxaan soo celinaynaa sharaftii iyo karaamadii ay lahayd ummadda Soomaaliyeed waxaan ku dadaalaynaa Soomaaliyada cusub inay xiriir wanaagsan oo ku dhisan iskaashi iyo isqadarin la yeelato wadamada dariska ah iyo kuwa caalamka intaba September 2012 wixii ka dambeeyay Soomaaliya waxa uu bilowday waa cusub ka u baahnaa taxadar fara badan iyo socod xawli ah si loola jaan qaado dalalka caalamka oo dana badan la wadaago loona hawlgalo sidii Soomaaliya loogu soo celin lahaa saaxadda siyaasadda caalamka madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa aqalka cad ku martigeliyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu safiir u soo magacaabay Soomaaliya halka markii hore ay safaaradda Mareykanka ee Kenya ay u xil saarneyd arrimaha Soomaaliya taasina waxay kor u qaaday qiimaha dalka waxaana danjirayaal u soo dirsaday in ka badan 40 dawladood iyadoo ay safaarado noo joogaan tiro 40 ku dhow xaqiiqdii wax ma qabataa dilaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadaan ka hadlo siyaasadda arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda xaqiiqdii waxaan aaminsanahay siyaasadda arrimaha dibadda in badan inuu ku guuleystay maadaama wadankan waan ogeyn waxa ku yaal jiray Xasan Sheekh Maxamuud sanadman saddex safaaradood maanta waxa la sheegay 31 inay ka badan yihiin waxaan aaminsanahay Xasan Sheekh Maxamuud inuu ku guuleystay siyaasadda arrimaha dibadda
waxaa xigay hay-adaha dunida ugu xooga badan dhinaca dhaqaalaha iyo maalgashiga sida sanduuqa lacagta adduunka IMF iyo bangiga adduunka kuwa oo si wada jir ah u amaanay hanaanka iyo dadaalka dowladnimo ee Soomaaliya iyo horumarka dhanka aqoonta iyo bixinta ee bangiga dhexe waxa ayna dunida u sheegeen Soomaaliya inay tahay dal la aamini karo dhanka maaliyadda taasoo ah damaanad caalami ah oo dawladda iyo dadka Soomaaliyeed u soo hoyatay. Politically, this country is coming together like never before. dawladdu waxay ka shaqeysay in la qafiifiyo cunaqabatayntii hubka ee Soomaaliya saarneed tan iyo sanadkii 1992 iyadoo lagu madlan yahay sanadkan in si dhameystiran looga qaado Soomaaliya cunaqabataynta hubka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihii hore ee UK David Cameron ayaa si wada jir ah u shir gudoominayay shirweyne caalami ah oo dhaqaale loogu ururinayay Soomaaliya. dawladda Soomaaliya waxa ay gaartay burburkii ka bacdi waa xilligii ay ugu fiicneed xiriirka beesha caalamka waxaana moodaa qodobkaas xiriirka caalamiga in laga gaaray tilaabo aad u wanaagsan ee horumar oo bidbid loola socdo maamul kasta iyo tuulo walba iyo degmo walba waxa ka socda ay yihiin wax ableeda oo ma garanaysaa tilaabo wanaagsan laga gaaray qodobkaas. sidoo kale madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Japan waxay laba goor wada shir gudoomiyeen shir caalami ah oo Soomaaliya lagu taageerayay September 2013 madaxweynaha iyo madaxda midowga Yurub waxay shir gudoomiyeen shirkii Somali Compact iyo New Deal oo Soomaaliya loogu yaboohay lacag gaaraysa 2 bilyan oo dollar. sidoo kale madaxweynaha iyo madaxweyne Erdogan waxay wada jir u shir gudoomiyeen shirar caalami ah oo lagu qabtay dalka Turkiga. muddo gaaban gudaheed markii uu talada qabtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa la shaaciyay in Soomaaliya ay ka baxday liiska dalalka fashilmay. Soomaaliya waxay soo ceshatay kaalinteedii heer gobol waxaana markii ugu horeysay Muqdisho lagu qabtay shirkii wasiirada arrimaha dibadda dalalka ku jira urur goboleedka IGAD iyo kii madaxweynayaasha oo isna hadda sii qoyan. tani waxay dunida u muujisay in Soomaaliyada cusub ay wax badan qabsatay lana jaan qaaday dalalkii ay ka hartay. markii ugu horeysay muddo 25 sano ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shir gudoomiyay shir madaxeedka midowga Afrika ee looga hadlayay xaaladda dalka Burundi waxayna dalka iyo dadka Soomaaliyeed u hay sharaf iyo qiimeyn weyn iyo inay soo noqotay dawladnimadoodii. waxaa Muqdisho soo booqday madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon xogayaha jaamacadda Carabta Nabil Al-Arabi wasiirada arrimaha dibadda Ingiriiska William Hague iyo Phil Hammond wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry wasiirada arrimaha dibadda dalalka Masar Qatar Imaaraadka Bahrain iyo madax kale oo fara badan. sidoo kale wasiirada xiriirka caalamiga ee Denmark Sweden iyo madaxda urur goboleedka IGAD. Soomaaliya waxay dib ugu soo laabatay safka dalalka dunida waxaana taa abaalkeeda leh madaxweynaha dalka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka dhaweeyay balantii ahayd inuu soo celin doono xiriirka caalamiga ah.